dowladdii hoobiye ogaan weysay ee buriska ogaatay buriska xaafadaha ogaatay ee hoobiyaha magaalada laga dhex ridayo ogaan weysay intaasuu sheegay gudoomiye intaas ma been baa adan ku weydiinaya in magaalada gudaheeda hoobiye laga rida ma been baa intaasuu sheegay intaas ma lidba in buriska ikaadi in dowladdu ay maqasho buriska xaafadda waa beri ama xaafadda taleex lagula jiro dowladdu ay maqasho oo cashuurtiisa raadsato oo hoobiyaha laga ridayo isla meelahaas ay maqli weyso abniga ma ku fashilantay mase abnigeedu waa toosay adan ku weydiinaya wiilka gobolka banaadir jooga ma aqaan magaciisa hebel mahdi waxaan rabaa inaan u sheego adeerow ka joog waxyaabaha qaarkood haddii hebel la dhihi jiray madaxweynaha uu hebel kala dhihi jiray hebelow lugaha dhiiqa lagu gelinaya adiga hebel mahdiyo waxaan leenahay faraha dhiiqa lagu gelinaya madaxa dhiiqa lagu gelinaya ka joog baan leenahay haddii la xirana nin ragaan ahay in sha allahu tacaala ninka raggaana in la xiro iyo in la soo daayo iyo inuu dhinto iyo haddaad gobannimo raadinayso waana lagu xiri karaa waana lagu dili karaa wax walbaa dhici karaa kama cabsanaysid maya anigu ilaahay agtiisa ilaahay baan ka cabsanayaa laakiin waxaan sheegayaa waxa dalkani u baahan yahay dadkani u baahan yahay anigu siyaasaddiyan ku dhex jiraa habeenkii meeshii ku hoyataan ogahay subaxii meeshii ka soo toostana waa ogahay nin ilaahay le baan ahay madaxweyne kaama yeeli kara wax adiga gaar ku ah haddaad awood leedahay ood isku kalsoon tahay ood aqoonteeda leedahay soo istaag stageka بسم الله الرحمن الرحيم وعنا وناكسن داودyaal idil ahaantiinba meel walbo aad joogtaan iyo si walbo muuqaalka iyaga idiin soo gaarayo halkani waa telefishinka RTN gaar ahaan waxa aad daawanaysaan barnaamijka gorfeynta RTN oo aan alaaba markaasi ku gorfeyno arrimaha siyaasadda barnaamijka waxaa maanta iigu marti ah Yuusuf Xaaji Cabdi oo ahaa wasiirkii hore ee howlaha guud ee maamulka Jubbaland sidoo kalena hadda ah xogayaha arrimaha kheyraadka iyo deegaanka ee xisbiga himilo qaran Yuusuf marka hore waan ku soo dhaweynayaa marka xigtay hadaan gudaha u guda galno dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal oo dabcan dawladdu waxa ay dagaal kula jirtaa ururka Al-Shabaab xogaalnimadaada inta aad kala socotay siyaasadda Soomaaliya aan iraade dagaalka Soomaaliya sidee buu ku socdaana waa mahadsan tahay diirshe adiga iyo guud ahaan tiimka RTN TV waa soo dhaweynaya waa mahadsan tihiin su-aashaada haddaan u guda galo runtii arrimaha dagaalka waa arrimo quseeya Soomaaliya oo dhan dagaalka ugu badan ee Soomaaliya hadda ay ku jirtana waa arrimaha nimankan argagixisada ama nimanka loo yaqaano shabaabka iyo nabadiidka runtii su-aashaada haddaan guda galo dagaalku wuxuu noqonayaa dagaal ee horta Soomaaliya midnimada Soomaaliya dhanka ah weeye dagaalka ay shabaab wadaan nabadda Soomaaliya dhanka ah dowladnimada dhanka ah diinta xataa dhanka ah weeye marka cid kastoo Soomaaliyeed ay taabanaysaa muhiimna ay u tahay in ay mataqaana ay ka hortagto cid kastoo Soomaaliyeed waxaa la gudboon inay ka hortagto waa tahay si kaliya oo cad waa tahay dagaalka Al-Shabaab wuxuu socdaa in ka badan 3 sano oo ay dawladdu kula jirtaa dabcan deegaano ilaa hadda aanay dawladdu gaarin baa jirta iyo deegaano aanay dhaafinba dawladdu misleedahay qaabka loo maareeyay ama dadkii loo xilsaaray dagaalku waxba ka qaldan waa mahadsan tahay runtii waxyaabaha ugu waaweyn oo runtii anigu aan aadka u taxliiliyo horta qayb bay ka tahay ammaanka dalka runtii dagaalkan 3 sano iyo dheeraadka socda ama dawladduba ay ku furfuratay wax ka qabashada inay wax ka qaban doonto ama sectorska ugu waaweyn ay ka dhigatay ama tiirarka ugu waaweyn ay ka dhigatay ama istiraatiijiyad u ahaa dawladda waxaa kow ka ah la dagaalanka Al-Shabaab ma aaminsani sida ay u wajaheen inay tahay sidii saxda ahayd ma qabo sida ay ayagu uga fikireen inay tahay sidii loo baahnaa waxaan aaminsanahay in ay dhaliilo badan jiraan waxaan aaminsanahay inaanan si directiga loo wajahin inay jiraan maxaa la yiraahdaa sifo kale oo looga habboonaa oo lagu wajihi karay inay jiraan laakiin de markii madaxda dawladdu ay yihiin dad talada dib u soo celinaya ama dad ehel u ah dagaalka ama dagaalada noocan oo kale ah hore ugu guuleystay ee tala ka qaadanayaan waxay noqon lahayd de niman raba inay ku guuleystaan marka waxay ila tahay sidii ay ahayd dawladdu arrintaas uma tallaabo qaadin gaar ahaan hogaanada dawladda waa tahay waxaad sheegtay in sidii saxda ahayd aan dagaalka loo wajahin dabcan waxaa muuqata inaad daldaloolo ay ku muuqdaan waa maxay daldaloolada ku muuqda ee qaldan ee u baahan in la saxo horta maaraynta waxaa lagu mashquulay
sida hadda dowladda waan ognahay saqiirka dhashay baa caawa og dowladda Soomaaliya maanta waxay focus ka saartay boobka dhulka danta guud iyo something siyaasadaha sida dastuurka ku xadgudubka dastuurka inay u dhacday in ay steediyadii la dirirtay in ay saamileydii siyaasadeed ay hankool isaga qabatay marka development iyo horumar ma jiri karo iyadoo uusan abni jirin haddii ay targetkeedu uu ahaan lahaa inay culays ka saarto arrimaha ammaanka waxay ku guuleysan lahayd wax walba ammaankana waa ku guuleysan lahayd ta kalena way hanan lahayd laakiin qorshaheeduba ma ahaynba afkay ka sheegtay ama afkay ka sheegteen nimanka hoggaanka u ah kadibna ma jirin wax fulin la yiraahdo dagaalkuma waxaad ula jeedaa waa dagaal ay dhaqaale ka sameynayaan oo aan idaacad ka ahayn dabcan waxaan anigu aan aaminsanahay haddii madaxda sare aynan ayagu dhaqaale ka samaynaynin in ay jiraan dad kale oo garab cararaya madaxda sare oo marin habaabinaya oo taladooduna ay dhageystaan inay jiraan maxaa yeelay waay looga gungaari la'yahay waay loo soo gabagabayn la'yahay waay loogala tashan la'yahay dadkii ehelka u ahaa maxaa la isugu koobay talada dagaalka wax badana meeshaas ka jiraaye marka cid walbay u caddaanaysaa taladuna waxay ku fiican tahay yaa ehel u ah baa la yidhahdaa farba fartii xigtaa lagu xiraa marka arrimo dagaal marka laga hadlayo waa waxaa qasaba yaa ehel u ah baa la yidhahdaa sow marka arrintaas waxaan aaminsanahay in aada looga gaabiyey ehelka markaad soo qaadid dadka ehelku ah dagaalka dabcan al-shabaab sheegtay dagaalka waxaa hogaaminaya taliyihii ciidanka xoogga dalka waxaa hogaaminaya taliyihii maxkamadda sare maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaa sidoo kale dagaalka hogaaminaya taliyaha hay-adda nabad-sugidda qaranka dadkaasoo idilma waxaad leedahay ma aha ehelkii dagaal wallaahi waxaan leeyahay xilligii loo baahnaa maysan imaan ayaga laftirkooda dib baa laga keenay taladoodana waxaan leeyahay runtii anigu hadda arrimaha ammaanka marka laga hadlaayo horta dalka ammaanka u wada quseeya dowladnimadana ammaanka ugu horeeyaba dal marka la fiirinayo waxaa la fiiriyaa ammaan dal la soo galaya albaabka laga soo galaya waa ammaan marka anigu dhaliilo badan ay muuqda runtii waxaan is leeyahay arrintaasu waxaa igu soo dhacda gabadhii hooyadeed ay tiri ninkaagan xooga badan gabadhayda kamaada dhali waayina hagar baa kugu jirta marka waxaan aaminsanahay inay hagar jirtaan aaminsanahay oo aan loo dhammayn waa soo daahir markaad leedahay taliyo hore ee ciidanka xoogga dalkaa jiray dhowaan isaga naftirkiisa uu hadlay wuxuu sheegay in daldaloolo badan ciidanka ay ku jiraan waliba ciidanka laftigiisu uu sheegay in shaki badan rag dhankaa kala jira inay ciidanku ku dhex jiraan ma waxaad leedahay eedda ugu weyn waxaa iskale dadkii hore u joogay mise kuwa hadda jooga wallaahi marka loo fiiriyo hay-adaha ammaanka waxay u baahan yihiin wacyigelin bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin inta ay aqoonta ay leeyihiin aqoon dheeraada oo kale ayay u baahan yihiin seniorskii hore u joogay jananadii hore u joogay inay tala ka qaataan laakiin hadda madaxda dalka joogta adigu moogta waxaa la yidhi ratiga dambe kan hore saanqaadkiisuu leeyahay haddii madaxweynihii iyo prime ministerkii aysan la tashanaynin dadkii ehelka u ahaa ama saraakiishii hore dalkan uu lahaa ama jananadii hore uu lahaa hadduunan la tashanayn ama ay la tashanayn sidee kuban dambe oo la tashan karaan saraakiishoodii ka sarreysay ma jirayso marka meesha waxaa ka muuqanaysa habacsanaan ballaaran oo dhanka ammaanka ah laakiin anigu waxay igula quman tahay in laga wada qayb qaato arrinta ammaanka waa arrin aada xasaasi u ah annagu runtii ka xisbi ahaan waxaan ummadda Soomaaliyeed ku boorinaynaa in ammaanka laga wada qayb qaato laga hortago hagardaamada iyo khatarta ee nimanka al-shabaab dhan kastoy tahay in laga hortago arrintaa waa ku boorinaya ummadda guud dadka mas-uuliyadda iska lehna waxaan ku dhiiragelinaya inay labalaabaan gaar ahaan ciidamada ammaanka annagu waa garab taagannahay garab iyo gaashaanaan u nahay inay 10 jibaaraan oo labalaabaan oo 3 laabaan dagaalka fahmaanna istiraatiijiyadda qaataan mas-uuliyadda saaran taasaan leenahay dagaalka al-shabaab intaan weli ka bixin dowladda markii ay dagaalka al-shabaab wajahaysay waxa ay u martay qaab dadka deegaanka oo la kicinayo oo la hubeynayo al-shabaab si ay ula dagaalaan dad badan baa arrintaa ka soo horjeestay oo yiri yaani shacabka gacantiisa hubka la gelin iyadoo la arkay dad macawiisley ah oo dan haddana al-shabaab dhankoodii ka soo hadlay dan haddana ciidankii dowladda garab siinaya ma is leedahay macawiisleyda qaabkii loo hubeeyey waxbaa ka siiya waa qayb bay ka tahay istiraatiijiyad xumadda dagaalka lagu wajahay qayb bay ka tahay waa muhiim dadka deegaanka inay iska qaadaan cadowga dul saaran ayagayna muhiimadda kuwaad ku dhacaysa laakiin waxaa mas-uul ka ah dowladda mas-uulka ah habka marka ay dowladda u maaraysay waxaan is leeyahay aad bay u liidataa macawiisleyda marka aad bay u liidataa waxay ahayd in intaa in ka badan la dhiirigeliyo macawiisleyda tareenina la siiyo waqti badan lagu bixiyo madaxweynaha Soomaaliya waxaa lagu dhaliilay
in dagaalka xooggii uu saaray deegaanada isaga uu kasoo jeedo reerkiina uu si gaara markaasi u huweeyey madaxweynaha dabcan waa dhaliilaha jira ma qabtaa dhaliilaha inay jiraan runtii waxyaabo badan oo daldaloolaa way iska jiraan anu hadda nin odayaan ahay ma raba inaan waxaa la yidhi nin odaya iyo umulisaba siday wax u og yihiin waxaa la yidhi uma sheegaan daldaloolo fara badan waa jiraan qaab loola tacaamulay oo ka wanaagsanaa baa jiray qaabka hadda loola tacaamulay qaab ka wanaagsan baa jiray laakiin way jiraan dhaliilahaasoo dhan way jiraan hadalla naga soo gaarayay siday ahayd looma maarin ama macwiisley ha noqoto ama ciidamada qaranka guud ahaan ha noqoto waxaan aaminsannahay inay dhaliil jirto laakiin waxaan rajaynaynaa inay talooyinka aan meediyaha ka sii daynayno inay qaataan oo encouragement qaataan oon ku dhiiragelinayno inay horumariyaan tallaabooyinkooda ay kaga hortagayaan argagixisada laftigiina waxaa la sheegaa inaanay afka idin dhaafsanayn talooyinka dabcan meediyaha ka jeedinaysaan oo aadan dadkii mudnaa taladaasi aadan dhiibaynin qowda maqashay waxa u qaban maadan waa sida ay dadka sheegaya markaa afkooda ay ku eg tahay oo ama qalbigooda ka timid waana dad kooban oo aan wax badan dareensanayn laakiin annagu hoggaanka xisbiga ahna musharaxa xisbiga talada dalka madaxweynaha ahaana madaxweynihii hore dalkan waxaa la garanayaa tallaabooyinka uu ka qaaday ammaanka waxaa la garanayaa wixii uu soo qabtay 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 5 ay ku caddahay dalkan inuu dadka maanta hadda talada dalka haya inay tala hayaan ama ay madaxda dalka maanta noqdaan dadkii sababay ayaa hoggaan u ah xisbiga musharaxna u ah marka afkay ka tahay dad aanan ogeyn systemka iyo nidaamka iyo maxaa la yidhahdaa waxay dowladnimada Soomaaliya soo martay marka ku tiri kuteen baan u aqaana taana wax weyn ma tahay idinku laftigiina haddaanay talada wax la idinka siinaynin ama dadkii mudnaa ay hawsha hayaan talada waxay naga siiyay haddii kale dagaalka way idinku mucaaradeynaa ma saasaad ula jeedaan maya dagaalkan anagu talada anaga sideednaba ka xisbi ahaan waxaan leenahay shuruudaan leenahay waxaan ku dhisannahay mabaadii aasaasiya sideedaba dalkan waxyaabahan uga fakarayno ma ahan kaliya inaan kursi tagno maaha ama musharaxeenu uu kursi taga maaha ama talada dalka inaan qabanno maaha kaliya waxa weeye waxyaabaha ugu waaweyn waxaa qodobka ugu horeeya waxaa ka mid ah ammaanka dalkan inuu noqdo priority-ga koowaad kadibna ay imaan karaan wax kasta oo markaas ay ummad ku horumari karto dal ku horumari karo annagu marka waana la yaqaanaa shalayna waa nala soo arkay maantana waxaan la taagannahay warkeena soofkii caanaha geelu ka cad yahay dalkan dhaliishiisa iyo problemkiisa iyo mushkiladiisa iyo meelaha uu ka liito waxaan rabnaa inaan ka kobcino oo marxaladda uu ku jira aan gudbino dadka maanta talada dalka hayana waxaan ku dhiiragelinaa waqtigoodana ha dhammaystaan maxaa la yidhaahdaa ammaankana ha ka shaqeeyaan dalkan iyo dadkan mas-uuliyadda ay u qaadeenna ha hantaan oo wixii ay mas-uulka ka qaadeen ha gutaan iyo mas-uuliyaddii ay qaateen waa tahay yuusuf dabcan waa maxay taladaad u jeedinaysay dowladda Soomaaliya ee ku aadan dagaalka al-shabaab maadaama muddo 3 sano uu socdo deegaanadii shalay al-shabaab laga saarayna maanta ay dib u joogaan waa maxay taladaas leedahay hadday dowladda qaadato al-shabaab meesha waa looga adkaanaya runtii haddii dowladdu ay qaadato istaraatiijiyad dagaal oo runtii aanan de meel walba laga sheegi karin lama rabo hadda anigu talada aan hayo inaan halkan hadda ka sii daayo xoogaa waxay noqonaysaa dhabarjab bay noqonaysaa laakiin haddii ay dowladdu la tashato dadka ehelka u ah wax badan baa uga kordhaya waxaan dowladdu kula talinayaa inay dagaalka al-shabaab loo midoobo kana shaqayso sidii loogu midoobi lahaa tusaaloo kale waxaan ku sheegi doonaa kolley haddii ay suuragal noqoto aniga ilamaba ahani gogasha madaxweynaha uu ballan qaaday arrimaha amnigana kolley inkastoon aan jadda ka haynin haddana in meesha looga hadli doono hadday suuragal tahay talada ammaankana sideeduba tala bannaanka taalla maaha waxyaabaha aan aadka uga soo horjeedna waxaa weeye talada ammaanka in bannaanka la keeno oo iska noqoto tala furan inay noqoto dhabarjab maahan miya in guuldarooyinka ciidanka ama dowladda qaabka ay dowladdu wajahayso dagaalka al-shabaab u wajahayso inaad meediyaha ka sheegtaan soo ciidanku dhabarjab iyo niyjab kuma ahanna wallaahi runtii markaan sheegayno waxaan sheegnaa inay wax jiraan inay dhaliil jirtaan sheegnaa inay sida loo maareeyey ay liidataan sheegnaa waxa noogu xigana waxa weeye inaan meesha ku habboon talada ku bixinno meesha ku habboon inaan talada ku bixinno talooyin badanaa nagu jira dalkan fikiraan ka leenahay ammaanka fikiraan ka leenahay waxbaan ka qabnaa dhaliisha jirtaan caddayn karnaa sida loo maarayn karaan caddayn karnaa laakiin anigu hadda shakhsiyan Yuusuf Xaaji ahaan inaan meediyaha ka sheego arrimaha ammaanka xoogaa waxa weeye waa
ama taladii aan bixin lahaa inaan halkan ka sheego ma habboona. waa tahay dib baan u dhigan doonaa taas, waana mahadsanta. arrimaha al-shabaab haddaan halkaa kaga nimaano, dowladda Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hoggaanka u yahay waxa uu dhowaan sheegay inuu dhigayo gogol ay isugu imaanayaan cid allaale ciddii madaxweynaha ka aragti duwan siyaasiyiinta iyo madaxda maamul goboleedyada dalka. dabcan gogoshaasi uu madaxweynuhu fidiyey maxaa loo fasiran karaa? nihow waa mahadsan tahay, soo dhowow. horta annagu gogosha madaxweynaha uu sheegay hogaankeenuna aad buu usoo dhoweeyey, xisbigana aad buu usoo dhoweeyey. gogosha waa soo dhoweyneynaa, in ammaanka dalka laga wada qaybto qaato oo loo midoobana waa soo dhoweyneynaa, waa muhiimay noo tahay. gogosha waa soo dhoweynay, laakiin waxaan raacinay 3 qodob oo aad muhiim u ah. gogoshan yaa loogu yeeray? horta yaa mudan inay tagaan oo marka ugu horeysa. marka ku xigta timekee iyo waqtigee la tagaya, waa qodobka labaad. 3 ama aanba ka bilaabay ajandaha gogoshani muxuu yahay, maxaa looga hadlayaa, ajandaha looga hadlaya muxuu yahay. 3daas qoraalan kusoo saarnay. ajandaha dabcan dowladdu ay ka hadashay, ajandaha waxa ay sheegtay inuu yahay in la dardargeliyo dagaalka al-shabaab looga jiro. meelna laguma xusin in laga hadli doono siyaasadda lagu kala aragtiyo duwan yahay. shir aana looga hadlaynin siyaasadda lagu kala tagay, maxaa faa'iido ka soo baxaya? wallaahi waxaan qabaa haddii gogol ay timaado, gogol marka ay imaanayso waa wax loo dhan yahay waaye. gogoshaas waxaa haddana loo kala qaadi doonaa dee wixii ku jira. ayadaa laga rabaa inay faahfaahin ka keento, ayadaa laga rabaa sifaha gogoshaas ay noqonayso iyo dadka imaanaya iyo waqti cayiman iyo ajandaha looga hadlayo inay faahfaahayso. ajandaha ani ma arag ajanda ay faahfaahisay, ma arag. gogoshaas ajanda uma yeelin dowladda, gaar ahaan madaxweynihii ka hadlay ajanda uma samay. qoraal dabcan soo baxay waxaa la sheegay in ujeedadu ama ajandahu uu yahay dardargelinta al-shabaab. nihow horta arrinta Soomaaliya intaa waa ka mug weyn tahay. ammaankuna wuxuu ku imaanayaa, waxaa la yidhi haddaan talada la wada lahayn oo aan dhinacyaha laga wada qabanayn, far keliya fool ma dhaqdo. anigu marka waxay ila tahay weli ma arag warqadaas. waxa ku qoran hadda waa ii sheegi kartaa, haddaad adiga akhrisay haddaad ii sheegto waa ka jawaabi karaa, laakiin anigu weli ma arag ajanda dowladdu ay ka leedahay shirkii oo noo soo baxay. waa tahay dabcan haddaad adigu raadiysana waa helaysaa. gogosha madasha dabcan gogosha madaxweynuhu uu fidiyey su-aal badan baa ka timid oo ah waayo cidda mudan inay ka qayb gasho oo masiirka ummadda Soomaaliyeedna wax laga weydiinayo. dadka qaarkii waxay qabaan in shirka kaliya ay muhiim u yihiin madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha, talada dalkan iyaga wax laga weydiinayo. marka arrintaana anihu waa mahadsan tahay. horta talada dalka state baa wax ku leh, saamilayda siyaasadda iyo siyaasiyiinta guud baa wax ku leh, axsaabta siyaasadda wax ku leh, madaxweynaha dalka iyo mataqaanaa dhammaan siyaasiyiinta wax ku leh, baarlamanka wax ku leh. waxaa loo baahan yahay aragti mid waxa anagu raadinayno ama dooda anagu aan qabnaa waxay tahay war dalkan ma qof kaliya iska haysan kara, dastuurkan ma qof kaliya samaystay, dowladnimada ma shaqsi baa leh mase wax la wada leeyahay waay. marka meeshan kama muuqato qaabka uu madaxweynaha iyo saxaabadiisu ama tiimkiisu ay wax u wadaan qaab furan oo ummadda Soomaaliyeed hagaysa, ama dowlad goboleed ay mataqaanaa dowlad uga sii mid ahaan karto, ama axsaab siyaasadeed ku shaqayn karaan, ama wax un aragti laga yeelan karo. madaxweynaha gacantiisa kuma jiraan, kamana hadlo. madaxweynaha taladiisu waxay isu soo koobtay anigaa leh, anigaa eri, looma joojinayo iyo something words erey sidaas oo kale ah. marka taasna dee dowladnimo laguma wadi karo, dal laguma wadi karo, amaan laguma dhowri karo, axsaab siyaasadeed laguma shaqayn karo. yacni wax tallaabo la qaadi karo anigu ma aaminsani haddii wixii la soo koobay. ma waxaad rabtay madaxweynuhu inuu ka talageliyo shakhsi aanay title xildhibaannimo haynin, aan waxba haynin? madaxweynaha badii xildhibaanada waxyaabaa lagu kala aragtiyo duwan yahay ee siyaasadda, dastuurka xildhibaanaha ansixiyeen, oo waxaad rabtay madaxweynuhu inuu la tashto dad aan wax title haynin. dastuurka wuxuu ku yimaaday, dastuur marka laga hadlaayo nin arrintiisu aad bay xasaasi u tahay. madaxweynaha ka talagelinta waajibay ku tahay, because wuxuu madaxda u yahay, dalku madaxda ka yahay marxalad kala duwan ka soo baxay, sifayna ku timaaday. waxaan rabaa arrimaha dastuurka 5 qodob baa lagu dhisay oo aad u waaweyn oo rugniyo waaweyn oo asaasiya. qodobka ugu horeeya waxaa waaye dastuur ka turjumaya dirirtii dhacday, dadkii isdagaalay, dastuur xal u heli kara inuu noqdo. qodobka labaad, dastuur aan ahayn dastuur uu shakhsi leeyahay ama shakhsi marorsan karo. qodobka saddexaad, dastuur ku dhisan
waxa la yiraahdo awood qaybsi ku dhisan qodobka afraad baarlamanku inuu noqdo baarlaman aan afduubnayn ama jeeb aan ku jirin golaha fulinta ama tiimka madaxweynaha ama madaxweynaha jeebkiisa aan ku jirin oo uu noqdo baarlaman furan uu noqdo dastuurka hadda jira ikaadi qodobka shanaad in ay cid walba iska aragto waa sifaha lagu dhisay dastuurka lagu dhisay waa la yaqaanaa 1 2 3 4 5 waay waxaa lid ku ah intaas shantaas qodob wixii ka hor imaanaya dastuurka lid bay ku yihiin waana waxaan mudnayn runtii shantaas qodob dastuur marka wax laga bedelayo waa inay maxkamaddii dastuuriga ahayd dhisan tahay dalka ma dhisan tahay waa su-aal maya ma jiraa baarlaman aan madaxweynaha jeebkiisa ku jirin ma jiraa oo xora ma jiraa waa maya yaa yiri madaxweynaha baarlamaanka wuxuu ku jiraa gacanta madaxweynuhu ku jiraa yaa yiri ikaadi aniga kuwa cadaynaya baarlaman gacan uguma jiro ummadda Soomaaliyeed baarlaman xor ahna ma joogo baarlamanku wuxuu ku jiraa gacanta madaxweynaha waxaana laga xukumaa waa anaga ku sifaynaya baarlamanka waxa laga xukumaa xafiiska madaxweynaha horaan u sheegnay maalin walban ku aadaanaa dadkana waa ogyihiin annaguna waa ognahay ilaahina waa ogyahay baarlamanka wuxuu xaq u leeyahay inuu xor noqdo baarlamanku wuxuu xaq u leeyahay inuu shuruucdiisa soo saaro ama dejiyo intiba baarlamanka maanta xor uma baarlamaanku soo shuruucda ikaadi sharciyada baarlamanka ay dejinayaan waa sharci uu madaxweynaha gadaal ka taagan yahay uu soo riixayo asagu soo hormariyay tusaale dastuur in wax laga bedelo see ku iman kartaa waa kuu sheegay shantii qodobin kuu soo sheegay wax kastoo lid ku ah dastuur laguma bedeli karo maxkamaddii dastuurigoon dhisnayn lama bedeli karo baarlamaan aan xor ahayn dastuur lama bedeli karo maxaa la yidhahdaa waxay dadku maxaa la yidhahdaa afti dadweyne waxaan ahayn laguma bedeli karo maxaa markii hore uu ku yimid dastuurku haddii mataqaana qof iska bedelanayo baarlamaanka waxaa ka dhex galo baarlamaanka waxaa fadhiya xildhibaano la soo doortay oo shakhsi walba oo Soomaaliya uu matala iyo halka fadhiya dadka wax ka bedelayna baarlamaanka dastuurka waa iyagii ma waxaad leedahay waad u gafaysaa xildhibaanadaas waad leedahay ma lahan garaad ay ku kala ogaadaan waxa ummadda wadanka oo waxay gacanta ugu jiraan madaxweynaha ninkii gacanta u taagay wuxuusan akhrinin ninkii gacanta u taagay wuxuusan aqoonin ninkii gacanta u taagay sandareerto uu ka helayo maxaa la yiraahdaa xafiis madaxweyne ka helaya gacanta u taagay yaa ku sheegay ikaadi since believing day isha macallina oo cid walba uga garanaysa waxa socda baarlamankan waa sababta uu jeebka ugu jiro waa sandareerto taasaan ognahay haddaan caawo baarlamanka keen halkan iigu keen dad ka doodaya ama u doodaya waxaan u cadaynaynaa waxay gacanta u taageen inaysan aqoon u lahayn laakiin adiga aqoon dastuurka aniga ma wax umad fiiri way furan tahay arrintan waa arrin furan cid kasta ka jawaabi karta oo aqoon u leh dastuur baarlaman aqoon u leh maalinta dastuur wax laga bedelayo waa inay qayb ka yihiin oo laga talageliyaa dhammaan isteedyada dalka xildhibaano matala ikaadi waxay leeyihiin xildhibaanadaasi marjac ay u noqdaana jira isteedkoodii ma ka haystaan wax go-aanaa may ka haystaan in la bedelo dastuurka hal cutub oo ka mida ma jira xildhibaan ka haysta ma jira ma ii sheegi kartaa ma jiro dhammaantood waxay khilaafeen wixii ay mas-uulka ka ahayeen qaarkood inta gacanta u taagtay am surely anaa kuwa cadaynaya taas marka taa ha kusii daalin waxaan ognahay waaye waana mahadsantahay waa tahay arrimaha haddaan kasoo tagno dastuurka haddaan kasoo tagno waxaa jira wax la isku khilaafsan yahay arrinta saamilada siyaasadda soo qaaday gudoomiyaha guddiga doorashooyinka oo maalinkii shalay hadla wuxuu sheegay in 5 xisbi oo keliya ay saamilay yihiin waxaan kale yaacayaa aanay saamilayba u aqoonsaneen marka waa maxay saamilayda kale aad sheegaysaan aanay wax shahaado qaadan okay waxaan kaa rabaa waxaa la yidhahdaa geela gal garoor ka keen oo de waxaan suuro galaynin wiil yaroo meel intuu iska soo istaagay yidhaahdaa 5 urur oo halkan fadhida oo anigu hadda aan arkin 5 urur weligeyna ma arkin mana maqlin laakiin waa dad Soomaaliyeed oo kale ayaguna aragti leh laakiin aan aaminsanahay in laga been sheegayo fakarka iyo afkaarta ay qabaan laga been sheegayo sidee ku dhici kartaa wadankan in uu wiil meel soo istaagay stage microphone qaato uu yiraahdo 5 urur ee meesha fadhida iyo madaxweynaha iyo xukuumadda ay u dhaxaysaa kubadda ma wuxuu ka soo qaaday sallax xaafadeedo banooni lagu ciyaarayo siyaasadda dalka laakiin sidaas u dhahay anaa ku haya dib u baar wuxuu yiri kubadda ila laala waxay uma aan ka dhex galo
gudoomiyuhu wuxuu yiri guddiga ama waxay u furan tahay cid walba inay isdiiwaan geliso doorasho xalaalana uu qabto idinku haddaadan ogolayn waxaad leedahay madaxweynaha iyo keliya iyo dadkaas u dhaxaysay waxaan rabnaa waxa laga hadlayo horta marka hore xalaal ha sheege hashu xalaal ma tahay iyada nirigtii aan ka wada hadlin hasha marka hore aan ka wada hadalno asagu xalaal ma ku dhisan yahay guddiga uu madaxda u yahay sheeganayo ee guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka ma asaga ismagacaabay mase wax loo dhan yahay oo la wada og yahay waay wax loo dhan yahay way dabcan si xagee loogu dhan yahay xildhibaanadii baarlamaanka ansixiyeen waxaan kuu sheegayno oo jeebka madaxweynaha ku jira tiimkani waxay ka yimaadeen madaxweynaha wiilkani waxaa dhisay madaxweynaha baarlamaan ma dhisin shaqana kuma laha wax loo dhan yahayna ma aha guddi doorasho iyo xuduudo shuruuc iyo nidaamay ku dhismaan waa la yaqaanaa 1 iyo 2 3 4 loo yaqaanaa intiiba kuma dhisna sidaa darteed marka anagu ma dhihi karno guddi doorasho laakiin waxaan dhihi karnaa wiilal ismagacaabay oo meel iska taagan oo aan garanayn waxay ka shaqaynayaan waay si cad because doorashada dalka ma ahan sallax banooni lagu ciyaaro maaha wiilka hadalkiisa waxaa shalay ka muuqday wax kale oo aan dee waana wuxuu ku dhisan yahay kolley qofku wuxuu ku dhisan yahay waraabaa hadda kahor waxaa la weydiiyey waraabaa waxaa la yidhi hooyadaa ma qurux badan tahay markaasuu yidhi hooyadayba haa ayadaaba halkaan soo mari doontay sugu dhahay annagu waa ogeyn guddiga doorashada ee magacaaban ee dhinaca ka raran ee aan guddi doorasho ahayn waxa uu dhalaayo wixii shalay iyo wax ka badan inay yihiin ayadaa meesha soo mari doonta waa sugaynay shalay wuxuu ku hadlay wax muuqda oo ka imaan doonay ahayeen oo la sugayay ahayeen haddaa intaa ka badanna oo ka imaanayaan waa mahadsanta yuusuf adiga iyo mucaaradka dabcan dowladda ka aragtida waxaad ku doodaysaan in dastuurkii dalka cid gooni ah ay gacanta markaasi ku haysato dabcan musharaxa haddaad sheegaysaan inuu xisbigiina hogaaminayo ama musharax walba oo Soomaaliya soo mara waxa uu sheegay in dastuurku wax ka bedelayo dalkan hore u soconayo ma waxaad raali ka tihiin in dalkii uu meeshiisii fadhiyo dastuurkii aan waxba laga bedelin dastuurkana aad rabtaan sida idinku aad jeceshiin in loo qoro annaga warkeena suufka iyo caanaha geelu ka cad yahay annaga doorasho qof iyo cod dalkan inuu ka dhacda rabnaa su-aalan laakiin ka qabnaa noocay u dhacaysa waa noocee ma nooc dalka iyo dadka aafa ku ahba ma wax dowladnimada lid ku ahba ma wax shaqsi iyo shaar uu talonaya taasaan horta ka qabnaa su-aashaasaan ka qabnaa iikaadi aafada adiga keliya kuugu xildhibaanada kale aan ugu maya dadka intiisa badan ay qabtaa waa qabaan fikirkaas waa qabaan maxaa yeelay isteediyadii dalka waa xubnaha ugu waaweyn maanta dowladnimada Soomaaliya ay ku buubayso ama ku duulayso maxaa dan u ah dalka iyo dadka dad weeye ma fahmaysaa marka suuragal ma waa maadsan tahay annagu marka dooda aan qabna waxa waaye doorasho qof iyo cod aan u baahannahay waa rabnaa xisbigeenna iyo hogaankeennuba raalli buu ka yahay laakiin nooc u dhacaysa waa inay caddaato oo wax raalli laga wadaya su-aal waadaxaan ku weydiinayaa welcome talada dalka haddaanay xildhibaankii baarlamaanka fadhiyey mandateka ku joogaan wax laga weydiinaynin haddaanay golihii fulinta ee dalka wax laga weydiinaynin madaxweynihii haddii aan wax laga weydiinayn oo idinla qaldan tahay ma ninka suuqa fadhiya ee caanoleyda ah ama qofka suuqa jooga wax laga weydiinaya mise adiga oo aan wax helahaynin wax laga weydiinaya waa maadsan tahay anigu waxaan qabaa aragtida aan qaba waxay tahay aniga kan caanoleydaana xuquuq inuu leeyahay oo xuquuq ka helo qof matalaad ikaadi qofka matalo siduu u matalayo inaan anigu la soxo la ogaano asagu laftirkiisa dalku mas'uul ka yahay qofka caanoleydaana waa dadkii muwaadiniintii dalka buu ka mid yahay adigu hadduu kula liito annaga xaggeenna waa ka weyn yahay qofkaas waa inuu helaa matalaad dhab ah waa inuu helaa matalaad dhaba waa inuu helaa qofkaas haddii matalaadda qofka matalaya uusan sidii uga habboonayd ku matalaynin ma ku daawanaynaa adaan ku weydiinaya adigu soo xildhibaan ma lihid anu xildhibaanan leh xildhibaankaagii wuxuu qayb ka yahay dadkii saxiix yaa kuu sheegay anaa ogde anu siyaasadiyaan ku dhex jiraa habeenkii meeshii ku hoyataan ogahay subax meeshii kasoo toostana waa ogahay ma aha warkaygu war saxaafadda aan iska dhahaya ma aha waxaan ka hadlaaya waa xog jirta oon ogahay xildhibaankayguna raalli kama aha kuwa kalena raalli kama aha waxa socdaa waa wax dhinac ka raran oo dalkana aan ceel geynaynin dadkana aan nabad iyo mudnaan siinaynin anaa kuu caddaynay annagu waxaan rabnaa wax la wada ogol yahay wadar ogol dastuurkan 108 bog buu ka kooban yahay dhammaan shuruucdaa ku taalla haddii aad dastuurkan jabinayso adigoo madaxweynihii dalka ah kuguma daawanayno kaamana yeelayno ninkii kaa horreeyaa laga diiday ka kaa dambeeyaan laga ogolaanayn kuwa kaloo kii kaa horreeyey kasii horreeyaa laga diiday iikaadi
ikaadi dastuurkan waa shuruucdii iyo nidaamkii dowladnimada loogu heshiiyey haddaad burinayso maxaad u tahay dalka maxaad u tahay dadka sidee sa'aal ugu jiidi kartaa har ugu jiidi kartaa waa su'aal waxaan rabnaa bedelka dastuurkan aad wax ka bedeshay waxaad ku bedelatoon ognahay dana adiga gaar ku ah shaar adiga aad tolanayso haddaad madaxweynihii dalka tahay sideen kugu aamini karnaa waxaa lagugu aamini layahay dhaqaalihii dalka iyo dhulkii dadka sidee mas-uuliyadda ummadda aad hormuud oga sii ahaan kartaa noocii lagugu doortay iyo sifihii lagugu doortay baad ka shaqaynayn sidee lagugu aamini karaa dad iyo dal wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta wuxuu sheegay dhulalkii dowladdu ay iibisay in loogu adeegay qarankan gabaari loogu iibiyey ciidankii lacagtii dhulalka ka soo baxday lagu celiyey ciidankii arrintaas waan dhamaysto wasiirka dabcan sidaasuu sheegay idinku waxaad adeegsateen kelmada boob sidee boob ku noqonaysaa haddii dalkii uu lagu celinayo lacagta dhulku wuxuu leeyahay nidaam buu leeyahay inaad hantida dowladda gado oo dowladdu gado waxay leedahay nidaam la maro guddigii dhulka ma dhisna ee qaranka ma jiro baarlamanka waad aragtay waxay ku doodayaan ma jirto miisaaniyadda dowladda oo lagu soo daray dhulkii la gaday lacagtiisa ma jirto waxay ku dhacday gacan gaar ah iyo qasnado gaar ah ma marin single treasury accountka dowladda iyo maaliyadda ma marin dadkii dhulka lacagaha shubay qaarkood oo maanta ku qasaarsan oo dhibaato ku qaba oo aaminsan in laga daba tegayo berri waxay caddeeyeen inay akoonno gaara ku shubeen ma fahamsa sow marka dhulka ma ahan wuxuu shaksi gaara iska gadan karo iska samaysan karo taana horaa warqad looga soo saaray dhammaan axsaabta dalka iyo saamilayda siyaasadda intaba waa la sheegay iyo dadka sugaya kursiga madaxweynaha dalka in aynan cid walba waxay rabtay iska samaysan karin dhulka danta guud inay ka digtoonaadaan dadka iska gadanaya kow waxaad ii sheegtay wasiirka muxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasiirka maxaa la yidhahda warfaafinta alcadaala something inaad ka wadaan malaynay alcadaala doodiisii waa dhegaysanayay anigu ilama ahayn dood ka turjumaysay sida saxda ah ee dooda loo dhigo ka turjumaysay laakiin dood waxay ku salaysnayd ama salkeedu uu ahaa dood cid u badinaysay sifaha uu meesha alcadaala kusii joogi lahaana ka shaqaynaysay marka nin walba sida isagu la tahay hadduu u dhigto maxaa hagaagaya ikaadi waxaa jirtay doodiisii qaybo ka mid ahaa waxaa jirtay inuu maxaa la yidhaahdaa dhulkii dowladda loo gaday maxaa la yidhahdaa gaadiid dagaal iyo lagu gaday maxaa la yidhahdaa agab military lagu gaday meelay ku caddahay ma jirtaa oo adiga aad caawa ii keeni karto no raadiso ma aha adiga caawa ii sheeg waxaa la yidhahdaa ma ogtahay war dowladeed warqadu ku qoran yahay waxa la qarinaya maxaa waaye wasiirka waxaanu hubin uu sheegaya طبعا isagaa isu tumaaya isagaa la xamaysanaya isagaa dantiisa gaarkaa wata fahmaysaa baashaan waxay u baahan tahay isla xisaabtan annaguna indhaha ma li'in dhagahana ma li'in garashadana ma li'in waa cay iyo lid dowladnimada ee lagu samaynayo dhulka dowladda in la boobo la xaraasho la gato dana gaara iyo shaksiyad loo gato ikaad haddii ay jirto waa inay baarlamaanku arkaan oo golihii sharci dejinta ah haddii ay jirto waa in laga helaa fulinta haddii ay jirto waa in si officiala loo soo saaraa haddii intaa laga waayey waxay la tahay xag la geel waxaa la yidhi wax gundi la geliya oo ka wen yihiin dhul dan guud markii laga hadlayo waxaa la sheegaa in shaksiga awoodda u leh uu dhul dan guud u bixiyo ama uu saxiixo waa madaxweynaha soomaaliya kelmadda boobkaad adeegsataan waxaad ula jeedaan madaxweynihii soomaaliya boobay hantidii qaranka wallaahi anagu sida aan hadda ognahay dhulkii danta guud dadkii masaakiinta ahaa ee laga barakiciyey oo aan caawa meelna lagu sheegin mas-uuliyadoodana markii hore loo dhaartay horta dadkii bannaankii joogaan dhulkii danta guudna waxaa la siiyey shaksiyaad si gaara ugu adeeganaya oo laga iibiyey oo lacag laga qaado micnaheedu haddaan taas ku weydiiyo dhulkaasi ma la boobay mase si sharciya lagu gaday adaan ku weydiinaya dowladdu waxay sheegtay in si sharciya micnaheedu waxa weeye boob annagu maana arkin dhul sharci lagu bixiye maana arag
dhul sifo sharciya lagu bixiyey iyo isla xisaabtan maanan arkin Ma qasab haddaad adigu meel ku eg tahay noo keen ama aan aragno hadda maya Ma qasab hadda baa wax siyaasiyiinta walba in adiga lagu ii ka- no, no, adoo no. shacab ah, No, aniga wax tahay kale ku no, ii kaadi annagu siyaasiyiintii dalkan nahay waxaan nahay dad rajaynaya dalkan inay manhaj iyo meelu u guuro iyo nabad iyo barwaaqo siyaasadda sideedaba waa ka rarista abaarta dadkaaga iyo dalkaaga iyo u rarista maskab iyo cagaar ummadaada Waa tahay. annagu waxaan nahay dad ka fakaraya dalkan waxaan nahay dad ka fakaraya dadkan qofna kuma xadgudbi karo shuruucda dalka iyo dadka ugu waana dambeyn mahadsanta ugu dambeyn Yuusuf waan soo gabagabeynaynaa intaanay soo gabagabeynin ka hor dhowaan waxaa magaalada Muqdisho lagu xiray mid ka mid ah gudoomiyaasha ururada siyaasadeed ee dalkan markaasi danta ka lahaa ama rajo ka lahaa inay dalkan isu soo sharxaan xiritaanka gudoomiyahaasi maxay sawir u muujinaysaa runtii annagu ka xisbi ahaan waxaan soo saarnay warqad baan ka soo saarnay qoraal aan ka soo saarnay arrintaas aan ku cambaaraynayno lidna ku ah waa sifo lid ku ah dowladnimada waa sifo lid ku ah dimuqraadiyadda waa sifo lid ku ah wax la yidhaahdo muwaadinka in qof la iska afduubto wax banaynaya ma jiraan in gudoomiye xisbi jidka laga qabsado oo sifo sharci darro ah lagula dhaqmo oo ilaa caawa aynan jirin wax lagu haysto oo cad oo clear ah oo dowladdu ay soo saartay aynan jirin waxaan u aragnaa afduub xadgudub iyo lid wax ku ah dowladnimada wax lid ku ah gudoomiyaha wuxuu sheegay in amniga dowladdu ay ku fashilantay ma aaminsan tahay in amniga dowladdu ay ku fashilantay dowladda amniga inay meelo badan oga fashilantay cid walba og ciddii hadal hadda waxaa jira oo type miiska saaran dowladdii hoobiye ogaan weysay ee buriska ogaatay buriska xaafadaha ogaatay ee hoobiyaha magaalada laga dhex ridayo ogaan weysay intaasuu sheegay gudoomiye intaas ma been baa adan ku weydiinaya in magaalada gudaheeda hoobiye laga rida ma been baa intaasuu sheegay intaas ma lidba in buriska ikaadi in dowladdu ay maqasho buriska xaafadda waa beri ama xaafadda taleex lagula jiro dowladdu ay maqasho oo ay cashuurtiisa raadsato oo hoobiyaha laga ridayo isla meelahaas ay maqli weyso amniga ma ku fashilantay mase amnigeedu waa toosay adaan ku weydiinaya adiga nooga jawaabta ikaadi taas waa iska caddahay waxaan hadda ka hadalno ama ka doodno ma ha gudoomiyuhuna intaasuu ka hadlay waxaanan aaminsannahay gudoomiyaha cabdiraxmaan salebaan xaashi inuu ku xiran yahay sifo sharci aan ahayn oo gardarro ah hay-adaha ammaankana waxaan rabaa inaan halkan caawa uga faa'iidaysto hay inay iska dhowraan u xaglinta ashqaasta fikrada ashqaasta ee ay ka fakeraan wixii loo diray oo ah ammaanka dalka hadday boolis yihiin booliska waa la yaqaanaa shaqooyinkiisa inuu shaqooyinkiisa ka adkaado qabsado wiilka gobolka banaadir jooga ma aqaana magaciisa hebel mahdi waxaan rabaa inaan u sheego adeerow ka joog waxyaabaha qaarkood haddii hebel la dhihi jiray madaxweynaha uu hebel kala dhihi jiray hebelow lugaha dhiiqa lagu gelinayaa adiga hebel mahdiyo waxaan leenahay faraha dhiiqa lagu gelinayaa madaxa dhiiqa lagu gelinayaa ka joog baan leenahay waa tahay waana mahadsanta waa tahay laakiin qaabkaad u hadlaysid hadda ee ah in hoobiyaashii lasoo tuuray aad sheegaysaan soo buunbuunin aad u sameynaysaan maaha ragga ficilada sameynaya yo aadaad u mahadsan tahay warkeennu annaga waa cad yahay annagu al-shabaab iyo ficilada ay wadaan iyo cid kastoo lid ku ah ammaanka dalka iyo dadka waa ka soo horjeednaa waxaan raalli ka nahay in la baabi'iyo waxaan nahay qaybkaa baabi'inaysa raalli marnaba kama noqonayno dowladnimada iyo dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed cidda lidda ku ah warkeennu saa uma cadda laakiin guddoomiyuhu wuxuu sheegay in ay jiraan dhaliilo dowladdii buriska maqli weysay ee madfaca maqli weysay ee buriska maqashay waa hadal caadi oo maanta la yaqaano wey waa intaas intuu guddoomiyaha sheegay waxaana leenahay intaas ma ahayn runsheegga waa ceeb sheeg ma ahayn intaa in uu lagu xiro lagu afduubto weliba aan sifo aan qaab ahayn guddoomiyihii sooman jidka laga afduubto intaasu ilama habboonay ma ka cabsanaysaa in lagu xiro adiga hadda wallaahi anigu haddii la xirana cadaalad baa laygu xirayaa waxaa laygu xirayaa inaan dalkan iyo dadkan ummadda soomaaliyeed aan u rabo nabad u rabo amni u rabo inaan dastuurkooda lagu xadgudbin u rabo inuusan shaqsi talada gaarka ah iska marorsan inaan intaasba bari ka ahay oo ammaanka ummadda soomaaliyeed aan kow ka ahay dalkaanoo madaxweyne toosan hela aan kow ka ahay nabadda ummadda soomaaliyeed aan hormuud ka ahay dhabarka ku sido oo aan gogol xaar iyo xariir u fidinayo haddii la xirana nin ragaan ahay insha allahu tacaala ninka raggaana in la xiro
in la soo daayo iyo inuu dhinto iyo haddaad gobannimo raadinayso waana lagu xiri karaa waana lagu dili karaa wax walbaa dhici kara kama cabsanaysid maya anigu ilaahay agtiisa ilaahay baan ka cabsanayaa laakiin waxaan sheegayaa waxa dalkani u baahan yahay dadkani u baahan yihiin aad baad u mahadsan tahay yuusuf xaaji cabdi ayuu ahaa sidoo kalena waxa uu ka tirsan yahay xubnaha ugu muhiimsan ee xisbiga himilo barnaamijka gorfeynta RTN ayaa dabcan daawanaysiin anigu waxaan ahaa diirsha cali tan iyo barnaamij caynkan oo kala daawadayaal intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo